golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta waxa ay ansixiyeen xeerka maalgashiga shirka 63aad ee golaha wasiirada oo laga qayb galay habka muuqaal aragga ayaa waxa gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana shirkaasi wixii ka soo baxay ka warbixiyay afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac isagoo ka hadlayna waxa uu yiri fadhigii 63aad ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka ugu horeyn waxa golaha warbixin guud ka siiyay xaaladda amniga iyo nabadgelyada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa faahfaahin golaha ka siiyay siyaasadda hantida raagta oo ay soo diyaarisay wasaaradda horumarinta maaliyaddu siyaasaddan oo lagu dabaqi doono si loo ogaado loo qiimeeyo loona diiwaan geliyo si midaysan hantida dawladda dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa golaha hor keenay wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay xeerka wadamarista isagoo wasiirku sharaxaad ka bixiyay kaabista iyo wax ka bedelka lagu sameeyay xeerkaas ugu dambeyn waxa golaha wasiiradu ay ansixiyeen xeerka maalgashiga Jamhuuriyadda Somaliland kaas oo muddooyinkii u dambeeyay yaalay golaha Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka Cable Hargeysa magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishoo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha